farxadda aroos ka dhacayay mid ka mid ah hoteelada Muqdisho oo mar qura isu bedelay murugo iyo in lagu kala dareero halkaasi. Dhacdadan ayaa xalay ka dhacday hool xaflad ka socotay kaas oo ku yaala mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho isla markaana soo dumay. Waxaana qaar ka mid ah dadkii xafladda ku sugnaa ay ku dhaceen boosneer ku yaala goob mid ka mid ah howlwadeennada hoolka Qoobey oo ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa inoo sheegay in uu dumay goobtii xafladda ay ka socotay ayna dadka qaar ay ku dhaceen goobta duntay oo ahayd boosneer ku yaalay halkaasi. Waxa uu sheegay ninkan in dadkii ku dhacay boosneerka la soo badbaadiyey balse mashraxaynta xafladda arooska ayaa isu rogtay mar kaliya murugo uur ku taaladeeda sidata. Dhacdadan dhif iyo naadirka ah waa mid ka mid ah hadal haynta bulshada inteeda badan ee maanta, balse qadarta Alle waa lama dhaafaan una baahan in lagu waana qaato.